waftidan ballaaran ee uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo ayna weheliyeen duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad taliyaha ciidanka booliiska gobolka Togdheer taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada qaranka ee gobolka taliyaha ciidamada asluubta gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeer ku tagay degmooyinka Balidhiig, Riyo Xidho, Duruqsi, Xaaji Saalax iyo deegaano kale oo ku teedsan xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya waxaanay kormeerka mas'uuliyiintan uu salka ku hayay shaqaaqa dhawaanahani ka dhacday degmada Balidhiig ee gobolka Togdheer halkaas oo la geeyay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland iyagoo kulamo la qaatay mas'uuliyiintani dadweynaha iyo cuqaasha deegaanadaasi kana xog wareystay xaaladda guud ee amniga deegaanadaasi waxa ugu horeyntiiba wartabiyeenada la hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo barakacay deegaanka Jaamac Dubbad ee hoos yimaada degmada Gaashaamo ee dhawaanahaasi lagu xasuuqay dad rayid ah oo ku dhaqan deegaankaasi iyagoo ka waramay sida ay wax u dhaceen iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka Balidhiig annaga oo maanta nagu dhacay in helaayay oo xasuuq xoog leh oo dhibaato oo layna oo biraysa oo xoolo laaya oo nooc walba leh ay nagu dhacday marka annagu waanu ka soo badbaadnay markii aanu ka soo badbaadnayna imika waxaan soo galay soonahan hadda annagoo dhowr ayaan soo galay meelahan hadii aanu soo galayna anigu qoys baan ahaayo meel baan aalay hadii aan aalayna casarkii markay ahayd salaada casar intaan la gaadhin ayaa dhibaato meeshii ka dhacday ciidamo ayaa yimi ciidamadiina markii ay yimaadeen waxay sameeyeen inay magaaladii u feeraariyaan rasaas xoog leh ay ku ridaan marka anagu waxaanu moodaynay dawladii oo dad dawladan ku hoos nool baan ahayn oo dawladii oo noo timi ayaanu moodaynay marka waxa dhacday inay dawladii markii ay soo gashay meeshii ay rasaas saalbooyina saan noo marisay markaanu aragnay marka dadkii oo daatay oo qayb dhimatay ayaanu qof waliba yiri nafta aan la cararo markii aanu cararayna dadkii lagama hadhine waana la iryaday dib marka xoog leh ayaa meesha ka dhacday dad xoog lina uu ku dhintay dhibaatada ayaanu anagu imika ka guryanimi oo aanu ka soo gaadhnay halkan iyadoo aynu maanta ka wada warhayno dhibaatada ay gaarsiiyeen dadka shacabka ah oo mutacsiib ballaaran u dirayna ee Jaamac Dubbad lagu laayay oo ciidanka New Police ay ku laayeen shacabka Balidhiigna wuxuu ka gilgilanayaa in sidii shacabkaas oo kale ciidanka booliisku ay u laayaan bay uga baqayaan sidaa darteed waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa ciidamada Itoobiya iyo madaxdooda iyo mas'uuliyiintoodu inay naga jiheeyaan ciidanka ay noo soo direen ee goobaha keeneen ee wax magaratada ah ee dadka shacabka leynaya waxa iyaguna geestooda hadalka iska daba maray taliyaasha ciidamada bilayska gobolka taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada qaranka Soomaaliland ee gobolka Togdheer iyo taliyaha asluubta gobolka waxaanay dhamaantoodba carabka ku dhufteen ahmiyadda ay nabadgelyadu u leedahay bulshada ciidamada qalabka sidee halka yimi waxay u yimaadeen waa heer nabadgelyada Balidhiig ama meel kasta oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland waa waajib qaran oo ina saaran inagu cidna ku duuli mayno cidna waxba ma yeelayno cidna ku xadgudbi mayno laakiin waxa weeyaan qof reer Soomaaliland in uu lagu xago ma ogolin ma yeelayno qaaqadii ka dhacday halkan ka dhacday ayaanu nimi oo uu nagu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Togdheer shaqaaqadaasi runtii waxa weeye nabadgelyadu cid walba wadan danbay inoo tahay inaga shacab ahaan ciidan ahaan Soomaaliland ahaan iyo cidda xadka inala leh kale ee dhinaca kalaaba idinku baa gurmad leedinaha kulay annagu waa waajibkayo meel kasta oo qarankani leeyahay oo xadka marka wax ka dhacaan ama dareenka soo yeero inaanu tagno oo u gurmadno waa laga maarmaan runtii arintana muddadii koobnayd ee arintaas dhibka ahay dhacday inagoo dhammaanteen baa u tacsiyadeynaa dadkii sida arxandarrada loogu xasuuqay Jaamac Dubbad gabagabadii waxa iyaguna intii ay safarkani ku guda jireen hadal la soo jeediyay
gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo iyo duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad u dambeeya ciidanka la shaqeeya nabadgelyadana koow ha ka noqoto marnaba yaanay dhicin inay naga xaggeena nabadgelyo darra ka timaado kuwa tanaasula noqda wixii inta ka duwan ay aragtaana deelqaafana ciidanka qaranka iyo ciidanka booliiska soo sheega maanta jooga uu idinla joogay haddaan idiin sheego halkan 3 guutaa maanta maray oo aad u hubaysan hub aad u culus wata guutada bariga ka timi guuta 17 baa la yidhaahdaayo waa guutadii macruufka ahayd ee qarankaas uu guutooyinka uu ku faanaabay ka midi waa ciidamada sida raha u booda xaqiiqatan waxaanu u soo jeedinaynaa oo ka codsanaynaa madaxweynaha qarankana inuu naga ogolaado codsigayaga ah in barahan aynu joogno muhiimka sida ilaa duruqsi ilaa balidhiig intan gobolka Togdheer la yiraahdo in ciidamo militariya oo deegaan ku ah oo tiknikadooda wata ay joogaan oo shicibkayaga aanu mas'uulka ka nahay ilmo yar oo dhalinyaradan halka fadhiya la midi aanu maalin walba xaqaqajin codsigaana madaxweynaha u soo jeednay biidinlaahi waa nalka aqbalaya Wabarwaaqaadan Maxmed shabakada caalamiga oo Wadweyne News magaalada Burco.